دولة goboleed ma ahane waa magaalooyin kuwa jooga waxa la yiraahdaa misaal ahaan dawlad goboleed hal magaalo waa misaal ahaan Kismaayo meel kale u dhaqaaqi karta male waa oodanta Baydhabo waa oodanta waa laba dawlad goboleed waa laba madaxweyne waana laba dawlad goboleed labadaas magaalo ah wax kale oo la tagi karo ma jiraan hadda waa aragta mid kale oo Cabdikariin waa cadaado inta looga ma bixi karo dawlad goboleed marka waxa la dhihi karaa Puntland iyo Somaliland maxaa yeelay waa isu socon kara galkacyad inta baabuurkaaga ka qaadan aad waxaad gali kartaa Boosaaso ta kalena tabta waa marka hadii dawlad goboleed waxa la dhihi karaa marka ay degmooyinka xukunto oo ay wareegi karto oo ay shaqay karto laakiin dawlad goboleed hal magaalo oo diyaarad lagu duulay ee diyaaradaas ma taqaana qofkii markaas xoo ahay qofkii markaas soo dhaweynay diyaarad dawla saaran wala socda markaas oo inta ka degto oo inta madaxweynuhu ma ku jiri oo inta ka degto shacabka wax ka gelay waa been la camiray dawlad goboleed waxa la yiraahdaa markii oo madaxweynuhu oo markaas tuulooyinka iyo degmooyinka oo kormeeri kari waxna uu ku kordhi kariyo waxna uu weydiisan kariyo marka meeshaan meel oo waxa way riwaayad lagu dhigaa laakiin riwaayadu hadda runtaas oo afjareen salaad adiga dawlad goboleedka hadda waxaad sheegtay Puntland inuu dawlad yahay maamul fiican yahay muddo maamul soo jirana waa yahay way taagsadeen maamulada Somaliland muddo jiray inkastoo ay dawlad madax banaan rabaan marar badan waxaan ku arkay adoo garow meelahaas tagaayo kuwa ka qayb gashay xafladooda iyo munaasabadaha maxaa la dhihi kala horta maxaa xiriir oo kala dhaxeeyo madaxweyne dawlad goboleedna ma tiidi orka iyaga argagixisada ma jecla iyaga halkaas xiriir aad kaleeyahay koonfurta waxaad ogtahay argagixisada gabaadaysiga oo gurigiisa ku heestaa markaas wuxuu ku leeyahay maxaa ahay igeerkaygi waa hadhowna waxba u qarxinaa anigana ujeedadayda ugu weyn waxa waaye in dalka nabad la helo oo argagixisada laga cirib tiro meel allaala markay argagixisada marka la dirirta oo col ah oo markaas aad adiga ku laafiyo karto saaxiib aniga la maxaa yeelay hadda cadawgaas oo masaajidada xamar hadda meel lagu duka kara ma jiro masaajid kasta waxa waaye intii waa maqan yahay waa eber qof ku duka karta ma jiro waana kugu dilaya hadaad ku duka tagto marka arintaas ilaahay looga soo horjeedo nolosha adduunyada waxa waaye ma ogtahay ilaahay wuxuu yiri fi dunya hasanatan wa fil aakhirati hasanatan adduunyadana waa la rabaa aakhirana waa la rabaa marka labadaasba inaad adiga u shaqaysataa laga rabaa marka hada meel marka xiriirka naga dhaxeeyo waxa waaye markaan ku soo gaabiyo la dagaalanka argagixisada waxaad tir waa meel lagu laafiyoon karo xamar masaajid lama gali karo amaana kama jiro hadda dawladaha aad sheegtay maamul goboleedyada Somaliland iyo Puntland dadkooda u istaagay aqoon-yahankooda iyo siyaasigooda sameeyay cirka kama soo degin Ethiopia uma dhisin deegaankan Muqdisho adaa u dhashay siyaasigeedii aad tahay maxaa uga fakari weysay inaad sida Puntland wax la qaybsato oo dadka wax u qabato inaad mucaarada ka shaqo hadda aniga markii aan xilka hayana arintaas tilaaban ka qaada waana dadaalay hadda markii aan xilka banaanka ka tagana talooyin bisan bixi kara talooyinkina ma yeelayaano qabiilkay ka cararaya qabiilka ay ka cararaya maxaa yeelay fiiri qabaa'ilka Soomaalida ayaa la rabaa inay dawlad laga dhigo qabaa'ilka Soomaalida waxa la rabaa in shacab miraysan inta laga dhigo ay dawlad noqdaan qabiil walbana waxa la rabaa deegaankiisa in lagu xurmeeyo laguna gacan siiyo inuu argagixisada ka saaro
iyaga marka argagaxsadii gacan saar la leeyahay qabiilkii marka uma ogolo inuu shabaabku qabsaday rabaan dhibaatada marka jirto on looga hiili karin waxaa waaye iyagaa waxay ku nool yihiin oo ay ku tiirsan yihiin argagixisada marka haddayna argagixisa jirin xilli heli maysiday qabaan adiga xilkina iyagaa fadhiya shalay ewelna waxaan kuu sheegay wal mu'allafati quluubuhum inaan ku keenno marka horaaba laga soo jeedo aanba ka keenna haddana iyaga hadday waayaan inay madax naqaan ma aaminsana marka waa gartay ha marka dhibaatadaas aan ku dhex jirno